dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahinina hakadaahin weliga ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahinina hakadaahin weliga يا معلمكينو دينتي أغانتي كغدد عذابتو أشعي سدور بذا أشعي ندور بذا يا معلمكينو دينتي أقانتي كغدد عذابتو الله سبحانه وتعالى عبسديسا ayaa lagu gaaraa wax waliba Allah subhanahu wa ta'ala la xasuusto ayaa wax walba lagu gaaraa Ilaah subhanahu wa ta'ala oo la adeeco amarkiisa la qaato dariiqa rasuulka kaleey salaatu wasalaam lagu qaato ayaa wax walba lagu gaaraa addoonta waxa badatay Turkiga badatay waxaan indahay maanta wix ka dambeeya ilaa maalintii ilaa maanta waxa ay safiirka u fadhiya dugsiga saddex sare Al-Qarni ee Turkiga u fadhiyo wax alla iyo waxa arabtaan oo Turkiga soo galo kaliya mahad xasan dhaha way idinku filan tahay ma sinidin maali wanaagsan hambaliyo bismillaahir rahmaanir rahiim maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe sare Al-Qarni macallimiinta sharafta leh ardayda marti sharafta telefishinada ee dalka ka jira jaamacadaha bahawdaaga inuu nahay iyo qof walba oo ku fadhiyo kursiga masabkiisa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ma doonayo inaan waqti dheer idinga cuno maadaama xafladu dad badan ay joogaan wixii kale waxaan jeclahay xafiiska inaad ugu maataan igu soo booqataan oo wixii faahfaahin dheeraadna jaamacadda aan idigu soo dhabeeyo waxaan halkan aan doonayaa inaan ku guddoonsiiyo minxo ugu talagashay jaamacadda Sky maamulaha al-ustaad Abubakar Macallin Ahmed Abubakar Igadoon Al-Qarni waa aqoon bile adduunko dhan waa laga ogiyay عاد ما قرصو روح عرده القرننا وعينكا القرني وأقوم بيله أدون كودن بالغوغي أنيقونا وحنقريا القرني نوقوس لسياهي القرني وأقوم بيله أدون كودن بالغوغي معلمينتي يوم ملكا mahad gaarayay leeyihiin cadceed ma qariso ruux curad ah Al-Qarnina waa caynkaas halkaas ayaan ku ekeenayaa maamulka guud ee isuulka Al-Qarni macallimiinta waalidiinta ardayda qalin jibinaysa gabdhaha iyo wiilasha isugu jiraan dhammaan marti sharafka baxda saxaafadda abwaanada ardaydii hore iyo ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
salaan kadib marka hore waxaan hambaleynayaa ardayda iyo waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta maanta qalin jibinaysa dafcada 7aad ee iskuulka Alqarni hambali idin leenahay waxbarashadu ma dhamaanin aasaskeeda koobaad ayaad maanta shahaadadii koobaad ka qalin jibinaysaan runtii aniga laftirkayga iskuulkan waxaan kamid ahay aasayaashii 2008 iyadoo waqtigu adag yahay aan laga sheekay karin maalkiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisa gali ku furay qolal maaragtay sida ay ahaayeen aan laga sheekay karin marka runtii iskuulkan waxaan rabnaa inaan ku faano oo jiro waligiis maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alqarni al-Ustaad Macallin Abuukar Macallin Ahmed hambaliyo dhammaan macallimiinta soo dhabar adeegtay ee ardaydan qiimaha badan wax bartay hambaliyo dhammaan waalidiintii soo garab taagneed muddada 12 sano garabka buuxana ku siisa ardaydan inay wax bartaan hambaliyo kadib mudane al-Marwooyin waxa ii muuqato rajo wanaagsan waxa ii muuqato in laga baxayo xilliyadii jahliga lana aadayo xilliyadii casriga iyo tiknoolajiyada waxaan rajo weyn ka qabaa ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alqarni qalin jabinaysa inay wax badan ka bedeli doonaan guud ahaan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan xaaladda magaalada Muqdisho oo aad u cakiran waayahan dambe waxaan rajo weyn ka qabaa gabdhaha maanta qalin jabinayo inay wax badan ka bedeli doonaan wacyiga wadanka ka jiro waxaan rajo weyn ka qabaa in horumar iyo guul weyn ay soo hoy doonaan ardaydan waxaan rajo weyn ka qabaa ardaydan inay sii horumari doonaan aqoontooda iyo tayadooda waxbarashada waxaan kaloo rajo weyn ka qabaa ardaydan inay naga doonaan madaxda mustaqbalka badbaadi lahayd Soomaaliya waxaan rabaa in aan u hambaliyeeyo ardayda maanta xafladan quruxda badan loo dhigay ee qalin jibinaysa waxaan leeyahay hambaliyaan leh waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo asna Ustaad Abuukar maamulaha Alqarni oo runtii nin aan ku dhaaranna anigu waxaan ka mid ahay horta raggii aas-aasay yacni ficil ahaan uma aasaasin laakiin ardaydii lagu aas-aasay Alqarni bilaawgoodii baan lahaa dad badan ayaa iga soo qalin jibiyey iskuulka dadna hadday ka qalin jibinayaan way fadhiyaan waxaan leeyahay ustaadkeenna Abuukar iyo macallimiintiisa ilaahay ha noo barakeeyo ilaahay ha noo xafido ilaahay ha noo daayo sababtoo isuma imaateen maanta intaan meesha fadhiso iyo inta kale hadda inaga maqano fursad inoo weysay isuma imaadeen marka waa mahadsantihiin soo qaybgalayaashiina dhammaan waxaan kaloo rabaa inaan u hambaliyeeyo ayagana fadhiyaan dhalinyaradii hore ugu soo qalin jibisay iskuulka Alqarni oo jaamacada soo dhameeyay ayagana way fadhiyaan kuwa maartay badan baa fadhiyo oo hadda ii muuqdaan oo naqaan marka waxaan rabaa inaan idinku dardaarmo adinka hooyo iyo aabihii idin dhalay sidaad ugu taxadirtaan oo markay idin koriyeen aad u korinaysaan iskuulkiina iyo macallimiintiina inaadan iloobin oo markaad ka qalin jibisaan dhabarka aadan u jeedino aadan ka tagin haddaad dalka joogtid iyo haddaad dibadda joogtid waa macallinkaadii waa tababarahaadii waa aabbahaagii labaad waa asluubtaadii waa akhlaaqdaadii waa indhahaadii waa gacmahaadii waa afkaadii kulli intaasaa wax ku baray maada aad ugu leexan karto ugu tegi karto ma jirto maadaama adoo yar oo 6 sano jiro ama 7 sano jiro lagu keenay ilaa dugsi sare aad ka baxdana aad la joogtay oo subax walba u soo dheelmanaysay khamiistii jimcaha maahine
inta uu ku tarbiyeynayo ku safayay ku toosinay meel walba ku geynay waa aabbaha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الكم ديران أيو مرتي شرف بدنا يقدم بيسا وحا يقدم بي والدين معلمين أردي إيو مرتي شرف كلي يقدم بيس دمان هذا الوحا دمي دادكي قهريي أنيقا كمسي ديران أيو هدي هذا الكوحا وانا اكسن كان ير وحتر له waxaan isku dardaarmaynaa oo kaliya alla ka cabsi Soomaalida qaadka iyo qoriga lagu waalayay war hoygeedka qariban dunidu way qaadacdo qarnigii hore waxa shir galay quruumaha midoobay oo qaraar laga qaatay baa kun qodob laga saaray oo waxa lagu yiri qofkii amaba qoyskii cuna qaynuunka sheegayo dastuurka ayar qaban qahar iyo qayla iyo qoysko kala haada iyo intuu qalalaasa dhigay qaadkoon diidnaa ka wacan annaga oon qiil helayn in aan qarash gelinna war hooy ma isqaban karnaa adduunyadu waa qiyaas qadar maalmiyo intuu qalinku inoogu dhacay qabrigu waa lama huraan qiyaamuhu waa na sugi malaa'ig qorshaysan baa waxaan qabanaba qortee qofkaan tawxiid ka qiran waqtiga aan qaybinayn dharaartii quud jarshayn habeenkii qiyaam u kicin qaadir ama haadinayn qacinu yahay ma ogtihiin dowladaha quuta iyo quruumaha uu u baxo annagay nagu soo qufaan iyana qayb kama cunaan ujeedada qaawanina su'aal weeyaan qarsane qaadkoon diidnaa ka wacan annaga oon qiil helayn in aan qarash gelinna war hooy ma isqaban karnaa qaamuuska wixii ku yaal ayaa qodob laga dhigtaa orah badan qaaya male warkiina waa soo qatimay qofkii qiimaynayo qaadkoon diidnaa ka wacan annaga oon qiil helayn in aan qarash gelinna war hooy ma isqaban karnaa war hooy ma isqaban karnaa qaadkana ma qobi karnaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo nasoo waafajiyay suurtagelina inay qabsoonta xafladan qiimaha iqaayaha badan marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay magac walba iyo maqaam walba ee meesha ku fadhiyaan sidoo kale waalidiinta ardayda saxafiyiinta dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa waqtiga uu dhamaaday mar raba marka inaan waqti badan geliyo ama hadal badan soo jeediyo waxaan rabaa oo kaliya inaan u mahad celiyo anigoo ku hadlaya magaca maamulka dugsiga hoose dhexe sare alqarni ardayda maanta qalin jabinaysa ee dufcadii toddobaad waxaana leeyahay hambalyo sharaf iyo sumcad weyn ayay noo tahay in aan maanta ka qayb galno dufcadeennii toddobaad ee dugsiga alqarni sanado badan xaflado badan oo sidaan oo kaleetana waa kasoo qayb galnay maantana waa xaflad kale oo muxuu ahay kuwii hore la mid ah waxaan leeyahay marka ardada sanadkan baxaysa waxaad gaarteen mandhahaaya waad qalin jabiyseen waad qalin badalateen oo kaliya waxbarashada wax badanaa dhiman waxaan leeyahay marka ardada hal daldaaran oo kaliya rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo waxbarashada sidaada waxay u baahan tahay adaab asluub ayay rabtaa waxaa la yidhi alcilmu bilaa adab ka shajarati bilaa thamar Barashio, you